xubno ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo maalmahanba ku sugnaa magaalada Tani Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa waxa ay kulan maanta la qaateen ururada bulshada rayidka degmada Jowhar ee gobolka Hirshabelle dhexe qaybahooda kala duwan. kulankani ayaa ka hadalkiisu waxa uu ahaa sidii ururada bulshada rayidka loogu wacyigelin lahaa ka qayb qaadashada doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka sanadda 2020 ilaa 2021 ee ah doorashada qof iyo cod. bulshadii ka soo qayb gashay kulankani qaarkood ayaa su'aalo weydiiyay xubnaha guddiga doorashada madaxa bannaan ee qaranka. marka hore waxaan rabaa doorashooyinka ee shaqada adag ay soo qabteen dadka Soomaaliyeed iyo sida ay ugu dhabar adeegeen in ay soo gaarsiiyaan maanta meesha aan marayno marxaladda aan marayno. marka hore waad ku mahadsantihiin dadaalka aad ku bixiseen dadka Soomaaliyeed. marka xigto anigu waxaan ka mid ahay ama aan ahay dhalinyarada Shabeellada Dhexe maadaama dhalinyarada ay tahay 75% نلقو قياسو واحد إيماناي واحد دبابتين بيكون عيان بضح صدق أنا إني دليرو محاكا قبل شيء سنة يقول لك دورشوي ككارن إنتلك عن كقابن كرنا دورشة كدعي دون تدور دولات بالشكل. هوين كنا وقت بطاطا وقت كشكايسات وحلا صامر إيدو حلبان كأي دورين شن فوضى دورين كنت يفوق في دورين صامر تلو كتير هذا ما أنت الحين تاجر توقف يحط قف يعود مركب مدعي كرتي جدي سنة سؤالة يهدين الله رب كسود حبايا وحيدان كل جت قف والبا إني حزبي له قبل كاين كسود الاستيت الإيماني قرار حفيزون فريق فوق رئيسو قرار حزبي ذا يجا وتاجين حقيقة يجا وتاجين عدة أو قصة خاصة عدة سيدة قصة يجا حقيقة هاي أنا قفت عن رأي كان هاي أول قبل غلصون مجعابين أو نلصور حلين أو ملك نقولك هنا أنا عن دورنا نظري. سبع سؤالات وحياة إنك جوجا هرجيسة ديدا مقدشو محاد كذا مع سنتين حاسب وطلق شيء. إنك هرجيسة جوج يكمل بوساسة جوج واسكت عق ديدا مقدش ديدا حاول طلق شيء. كوب إنك جوج حام كل الشيء بنان كان كرة جوج يعني إماري كريم أمن درت درت أصلا حاول طلق شيء. وسؤال سلامات تنسد حال إنك عقك كذا أنا هنا صوب حنا عقك أن كذا ninka codka ku ridaya ee dooranaya ee soo bandhigay soo qadimay amnigiisa maxaa ugu tala gasheen ilaa 150 meeshay marto isloogna wixii ka dambeeya wax yar maxaa ugu tala gasheen amnigiisa asagan. Khadiija Cusub Lacali oo ka mid ah xubnaha sare ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ka jawaabtay su'aalihii la weydiiyay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. fartuun waxay tiri 175 dhalinyaro way xaguulaysaa dhalinyarada dalka waxay u haysaa waa inuu qabsado maxaa yeelay mas-uuliyadaas saaran dhalinyarada diinka beri noqon lahaa inay mas-uuliyad dhaqaalaha laga tago ayagaa laga rabaa inay involve noqdaan inay wax kasta oo shaqaaqa la qabanaayo ay ka mid noqdaan inay xuquuqdooda u dagaalamaan xuquuqdooda waxbarasho midooda siyaasadeed midda dhaqaale intaba ayagaa laga rabaa inay meelaha tagaan xafiisyada xafiisku wuxuu ku shaqeeyay anaga wuu doorasho oo lagu imaanaysa laakiin doorashadaas waxaa dhuma dhalinyarada inay ka mid noqdaan dhalinyaro firfircoon inay ka noqdaan axsaabta markay axsaabta dhalinyaro firfircoon ka noqdaan siyaasadda inay soo galaan inay maaragtay dejiyaan nidaamka iyo ku shaqeynayo inay xuquuqdooda magaalada jooga ilaa hadda dad la soo magacaabay u badnaayo wixii ka shaqeyn jiray samayn karaan wacyigelinta loo sameeyo inay xuquuqdaas leeyihiin inay kasoo qaybgeli karaan nasarkooda in la doorto inay wax doortaan in loo fududeeyo meelaha ay wax ku dooranayaan ya kadibta ama meelaha la isku diiwaangelinaayo waxaasoo dhan waa ka shaqeynaya regulations ay jira ama habraacyo loo raaci doono haddii ilaahay yidhaahdo waxaasoo dhan waxay soo geli doonaan wacyigelintu waa bilaab insha allah waa sii socon doontaa waana soo dhaweynaynaa waxaan idin leenahay contributionkiina ama waxaad maaragtay ku kordhin kartaan arrimahan oo dhan waa muhiim maxaa yeelay sidaas sheegtay idinku baahi dadka aysan qabin oo gaar aad qabtid baahidiina waxay u baahan tahay tixgelin haddii aad idinka sheeginana cid kaloo idin sheegaysa sidaas darteed inaad ka qayb gashaan oo wax kastoo la sameynayo ama wacyigelin ha ahaato ama in la doorto ha ahaato ama in la isdiiwaangeli ha ahaato inaad ka wada qayb gashiin waan soo dhaweynaynaa waan rabnaa waan idinla shaqaynaynaa.
kulamadan joogtada ee wacyigelinta ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ay ka wadaan magaalada Tani Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa waxa uu ku soo aadayaa xili dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ansixiyay sharcigii doorashada qaranka. Ali Taliya Cabdi, Shabelle TV, Jowhar.